war farxad leh waliba aad iyo aad u farxad badan oo aan rajeynay inaad ku farxi doontaan oo Soomaaliyo dhan meel walba caalamka ka joogto ku farxi doonto. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. aad baan salaamayaa waniga waa Abta Satar. aad baan salaamayaa dhamaantiin waa idin xisay ciid wanaagsan ciid qurux badan waa ogahay ciid dhamaatay laakiin still waa idin gaarsiinaya waxaan leeyahay ciid wanaagsan oo qurux badan aad baan idin ku xiisay waa ogahay saas lamada inaad noogu xisteen oo aad in badan sugayseen filmadii musalsalka adin wadnay oo aan ku taageerayna soonkii macnaheedu ma ahan in uu musalsalka dhamaaday bad xoogaa ciidna soo gashay maalmaha farxadeed awgeeda waxaan awoodi waanay filimkana sii wadno waxaan muuqaalkan u duubayaa inaan idinka raali gareeyo muuqaaladana way sii soconayaan wax istaagi doona ma lahan musalsaliinta adin wadnana way sii soconayaan ilaa xadka dhamaadka uu gaaro kii istaanka socday kii shumeeyka socday iyo kayga waa insha Allah way wada soconayaan dhamaantoodaba waxaan mar kale mar saddexaad buu aan dalbanaynaa in aad naga raali ahaataan maadaama wax inaan idinku bilaawno sida awgeeda maanta laga bilaabo muuqaaladeenu waa soo fasaxaynaa ayoo qurux badan oo aan soo diyaarinay intaas kadib waxaan rabaa inaan idin sheego war farxad leh waliba aad iyo aad u farxad badan oo aan rajeynay inaad ku farxi doontaan oo Soomaaliyo dhan meel walba caalamka ka joogto ku farxi doonto warkaas oo ah wallahi dadku horeeyay aan la wadaagatiin idinka sababtoo waa idin jeclahay waliba zaid warkaas war farxad leh waana rajeynay inaad ku farxi doontaan waana midkii caalamka noo horseedi lahaa tusin lahaa Soomaali arki lahaa inay ku jiraan jilayaal caalami ah ilaa heer caalam wax jiri karo inaan leenahay sheekooyin qisooyin aan u baahna inaan bandhigno oo caalamka aan tusno sababtoo waddan walba wuxuu leeyahay qisooyin u khaas ah qisooyinkoodana ha noqdaan inay heeso ku bandhigaan qisooyinka dadka markaad fiirisid waddan walba qisooyinkiisa wax uu ku bandhigaa qaab dadban hana qato qaab jilin oo jiliyaal waddankaasi u dhashay ama waddanku u ahaadaba inay matalaan oo in fanaan uu hees ahaan u soo qaado taasi waxaa u sii dheer luuq inay marka hore ay qisadu soo bandhigaan haddana ay luuqadooda ku soo bandhigaan waad fahamtay Soomahan maanta waxaa sameynay filim aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad la heer caalami loo sameeyay in muddo ahna soo socday uu soo gabagaboobay filimkaasi waa filim Soomaali ee matashay wiilkiina atoorihiina Soomaaliyeedna uu ku jiro qayb liwaaxda uga qaatay uuna ku baxay luuqadeena quruxda badan ee Soomaaliga waxaan doonaynaa in caalamku aan tusino in Soomaali ay leedahay jilayaal aad u qurux badan iyo qisooyin aad u qurux badan oo laga sheekeyn karo filimkaasi waa filim heer caalami loo sameeyay waxaana loo wadaa shirkadaha caalamka ee caalamiga sida Netflix, Showmax iyo shirkadooyin kale badan already filimkii waxaa soo dalbaday oo aad uga helay shirkadda Netflix oo rabto inay baac filmeed ee nala sameyso filimka waxaa iska leh company aad u qurux badan oo aad u weyn oo filmada caalamka sameeyo wuxuu hadda ka hor sanadka hore sameeyay filim Rishaay ee dhahan oo kaarinta saddexaad ka soo galay Afrika oo dhan Afrika oo 54 wadan ah ayuu wuxuu ka soo galay kaarinta saddexaad sida awgeed maanta waxay sameeyeen filim Soomaali ah luqad Soomaali ku baxayo oo aad u qurux badan marba inaan afafaahin dheer ka soo bixiyo oo aan idinka sii dhaco filimka wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ahaa sababta waxaan u baahanahay inaad soo daawataan indhihiina aad ku soo ogaataan aad soo aragtaan filimkaasi waxaa laga soo fasaxi doonaa shilimooyinka waddankan hadda ku nool lahay ee Kenya haddii macquul noqotona waxaan rajaynaynaa waxaa kaloo rajaynayaa in meel walba Soomaali ay joogto u gaari doono filimkaas una noqon doono film aad ku qanacdaan aad ku farxi doontaan waxaan rajaynayaa idinkana dad walba dadkiisa qof walba dadkiisa baa hore u qaada oo sare yeela bumbuniskiina waxa u baahanahay caalamkaas in sheekadan ay ka gadmato arakaan kow luuqadeena inaan ka gadi karno labo qisooyinkiina inaan ka gadi karno saddex inaan tusin karno inaan leenahay dad ay ku faanaan ay dhihi karaan dadkaas waa role model waxay yihiin jilayaal noo khaas ah sida wadamada qaar ee u buunbuunayaan u qurqurxiyaan dadka aan waxba ka ahayn agtooda laakiin caalamka ay u arkaan inay dad balaayaha yihiin warkan aan ku sii dheereeyo marba muuqaalkan
marka hore ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan keliya idinku raali gareeyo maadaama idinka soo dahan muuqaaladii aan ugu barteen muslimiintii waxaa jeclaystay newskan marka hore anoo u rajeynaya qaab TikTok ahaan inaan usoo fasaxo oo halkaas aan kusoo bandhigo haddana waxaan jeclaystay inaan noqotaan dadkii ugu horreeyay aan usoo bandhigo oo ka warhaya filinkaasi hordhiciisa ama maxaan ku dhahaa saa u taqaana xayeysiiskiisa wuxuu soo baxayaa bishan hadda aan ku jirno 10keeda ama 11keeda hadduu ilaahay maareen marka uu soo baxo ayaad meel walba aad ka daawan doontaan oo platform social media aan leeyahay iyo companigaasba ay leeyihiin sida awgeeda nala socda oo naga warhaya filimkan waa film heer caalami loo sameeyay oo adduunweynaha loo wado shalmooyinka caalamka laga soo sidaayina aad iyo aad loo rajeynayo waa filimkii Soomaali meel wadi lahaa qisadeennana aan ku sheegi lahayn caalamkuna ay nagu baran lahaayeen waan rajeynayaa inaad ka heli doontaan oo aad ku qanci doontaan fadlan haddii uu trailergaas ama xayeysiiskaas uu soo baxo si faafiya oo caalamka kale si u arkaan ay noo soo raadiyaan ayaa dan weyn noogu jirto muuqaalkan inaan idinku sii dheereeyo mar halkaas oo ku yahay waxaan rabaa inaad la socotaan filimada quruxda badan muslimiinta aan dib u soo bilaawi doono oo aan meesha ka sii wada doono inaad idinkana aad halkaas ka sii daawataan maalmaana fiiska hoos u dhacay wuxuu bilaabay in dadkii arano daawashada meeyeen ma garan karo laakiin waxa ku caajisan idinka oo fadlan naga caajisan soo daawada soo booqda oo muuqaalada markay idin soo gaaraan soo share gareeya subscribe like to comment dhiirigelin waa sababtoo wax meesha u fadhina waa keep going taas sayidin dhaay waa toorigan idin leh aad baan idin salaamaya aad baan idin jeclahay hit the subscribe button like dhac ku sii comment ka soo bixi we love you so much مع السلامة